يا الله ما باي باي معنى على السلامة لأسبان عرب يقولون عاو فرحة ملك لقيه ملك لقيه فرحة ملك عاو مركي مراكو صباح وريق سديدات اسبين قدرتي مدريد كوعليسي دالكيدي مركي كوكراضي ريغوروينكا ياسين بولو ayaa dusha saarta ku dhahay yaasin bolo iyo Portuguese oo ku durdurisay Switzerland markii uu sareysay 6-1 iyo qaar kale badan ayaani hadna waa walaalkii maxamed fantastico waa maxkamadda meediyaha haka ilaa inta ku xulto subscribe ka like commentiga oo soo qoro raayada waa ciyaarihii koobka adduunka oo meel qaraar marayo wareegii sideedaadna soo dhameystirmay labadii wadan oo la sugayay وهاجا أكو باللابو وإسبانيا إيو موروكو ولا وضن لو جيران إيه أو اسكو دو أو حدود كده هايو ولا وضن أو استيفان اسكو يقان مركز أذكري من الكوب كأدون كي هرا يارتي جروب ككلات يارت بريجانة أي مغرب استاشي إني يارت سبادي صا لكن ده جديد بيو حسب بريجي اسكو سالسا عنه لوضع كون يتم سيد الكوب كأدون كهاي لكن تعرف هاد جروب تن لكن وكبدلنا له شيء كذا وحياة هدا كقرع وقولها ورتها عاديسة هدا يقرأ أنا قولها ورتها هذا إيه مغربي أو نقدون على مغربي مس إسبين أو نقدون تعادي إسبيني إيش حكاية تعنيت كانت قوة عيرتا لو ذا كهبو دفاع بيكو كلا جيران يعني أتكستو ورديه وجرت واتقانها عيارناك أوه أد إسكوالي سمالين كان كلا بانت كذلك وحلو قد بإكسترا تمكي نو أحوال سكاد واي وحي أنت لسكو الريحة ولا ضد الله اسم رواين وحي على جهة لحظة الحاسمة لحظة دي لو بهنا يرجع أو حالي كصوب حي كرواتيا مركو يابان أو سرية جورينكا بلسه حدق لها ياسين بولو أو كعيارو ريال كسبين ونا عيارو كوحدة زفيليا أيا واحد هاي هرس بين أنا إدايا أنا سيد دانك ومناي كوانه سيد دانك أنا الرجوع إدايا الله إدايا صاحب مركز جورينكا لجارة يارتا رجوع كوضو حب الله منتخب المغرب جوش كواد ولا يمت لكن إسبينا صوب هذي برتا يقول على برونيجي كواد لكن ياسين هذي لانك الله ترى برونيجا برتا يقول على تيلوات حكيم زياش أيا قبصة حدك جلسي وكذا لي بس تيسد حد ياسين بالله واحد هاي أنا وايك الكي مركك الله هذا أبا هو ودرناه كذب حدك المغرب أيا شو ذي وعلى قبطة سجنة waxaa soo baxay markii dambe xadiga Maghrib waa laga qabtay waxaa soo baxay xadiga weyn oo Barcelona Busquets waayilkii ayaa dhahay ana shuday ale banayo ana meesha Turkiga ale banayno waa yimid Yaasin Bollo ale dhahay miya aqoon marid miya waxaa ifisday 8 milyan oo shacab ah ibanayo ay banay saaxib nanka midigta banaanka loo tuuray gooshi saddexaadna waxaa u dhashay Maghrib xadiga باريس وعيارو وأشرف حكيمي أيا جول شيء سحري أي مغرب وصاب هذا وريق سديدات مركز هرسي وودن كي وهرية اللغات عربية كهاد لا وصاب وريق سديدات وودن كي أفراد أو أفريقيا مثلا يعني وصاب وريق سديدات مركز هرو صاب السنغال إيو كاميرون إيو نيجيريا سدا ما السنغال إيو كاميرون إيو هين غانا سالسا نبو وها أسوق وريق سديدات saddexaad wadani ahayn Afrika dilaayo waxa soo afreeyay Maghrib oo hadda caawa soo baxday sugi doonto Portugal iyo Switzerland soo baxo wataas tan dhankaas daa u gudbay ciyaarta afdal laacib waxa qaatay xidiga ciyaarta Yaasin Bollo ayaa ku guuleystay bal hadda u gudbay ciyaarta labaad oo caawa 10kii soo galeysay 10kii fiidnimo waa Portugal iyo Switzerland ayaa idin wacdar la yaab la ka dhacay markoo tababaraha Portugal fadhiisiyay كريستيانو رونالدو بنجيغا او دحي اديga saaxibow waa soo dadaashinta dadaal kartay ciyaalka u banay waxdarahna tusaanay ayaa Portugal wacdare ka dhigay garoonka xalay kuna awood sareysay 6-1 waa nus darsan hadiga Ramos ayaa hadiga ciyaarta ahay markuu dhashay hat-trick ugu horeeyay ciyaarta koobka adduunka ka socdo hat-trick ugu horeeyay Bebina gool ayuu dhashay laakiin waxa loo qaadan برناردو سيلفا برتغال مركو soo laabtay waxa uu malaysaa dhaxday Portugal inay soo laabatay nolosheedii banooni tiki taka da billa ciao Bruni caadeen ee la soo baxeen Portugal kuna awood sareeyeen 6 adooga oo soo galay markay maraysa daqiiqada 7aad laakiin hal gool ayuu dhashay hobsad ay ka naqatay
waxaa soo qatimay goolasha oo maharajaanka hadaafka soo daboolay afka ka xiray hadiga heer Milan Rafa Leao ayaa gool caalami ka dhashay daqiiqada 93aad kuna soo qatimay 6-1 ee naga doonta taariikh ciyaar wareegga lagu qabtay 16aad oo knock out ah kooxdii ugu badneed oo ku badisay 6-1 hore waxa uu watay 5-1 Spain oo markuu badisay iyo Brazil oo markuu badisay laakiin hadda Portugal waxay naqatay taariikhda kooxdii ugu gool badneed wareegga 16aad oo knock out markay ku awood sareysay 6-1 adhe nus darsan waxaa sugnaa markaa jimcaha hadoo alla ka raali noqdo waa Holland iyo Argentina wow Holland iyo Argentina Croatia iyo Brazil waa wareegga 8 bilowgeeda jimcaad labadaas wixii ka soo baxo ayaa wareegga afraad isku aadi doono afarta kalena kuwana waa Portugal iyo Morocco labadii soo baxo England iyo France ayaa kana heerkii awood rabo finaalka intaas soo mari kara oo iska dhici kara kulley aniga Maxamed ahaan isleeyahay waxaa banaanka yaalo Brazil iyo Argentina oo ka soo bixi doono dhankaas iyo Portugal iyo France oo intana ka soo bixi doono wareegga afraad sidaas u dhamaysan doona finaalkana waxa isku imahayo semi finaalkana waxa isku imaan doono Brazil iyo Argentina Portugal iyo France ayaa dhigi doona sayniyada ila tahay iyo sida weyn oo aanay u malaynayo ciyaaraha waa gartay waxaan ku soo gabagabaynayna intiina ka soo gartay ciyaaraha koobka adduunka walaalkiin Maxamed Fantastico subscribe ka ilaawinay like comment-ga nagu wadaaga xiriirigina ciimamadana u tiraado waxaan ilaahay fi amaan Allah waa sadambo inta kala kulmi doono doolaha